شيخ سؤاشان كوباد waxay ku saabsan tahay wax la dhaho shiico leeyahay umada Soomaaliyeed oo muslimka ahayd boqolkiiba boqol ahlu sunna wal jamaa ahayd firaq kala duwan baa soo maray xilliyo kala duwan dib farxun bayna ku reebeen hadda waxa cusub oo carcar wato wax la dhaha shiico waa maxay shiico sideedaba maxay tahay farqiga u dhaxeeya shiicada iyo ahlu sunna wal jamaa وسؤاشا عن إسلامه ويوه الرئيسة والصلاة والسلام على رسول الله شيعة ولا يقانا وإحدى الفرق الضالة فرقوينك مسلمين أهل صنع بعضيسا أي كمدين شيعة ولبا آد أفق أي كمدين بعض النوضة وحكو قريان الانتساب إلى أهل البيت أنا أقول نصب شيئا هيا وأبترسن هيا أهل بيتك ama ay ansaar iyo shiica iyo kuwa u kaalmeeyo garab taagan aalu beedka inay yihiin oo been abuurada xaqiiqo madhabtooda markii la raaco waa madhab gacan kale ay ka dambayso asaaskeedii hore ila al'aana ba gacanta aan islaamka ahayn baa ka dambaysa siyaasad xeel dheer oo xagga gaalada ka socota ka dambaysa marka meeshii islaamka ka dhaqdhaqaaqaysay ayay ku dhagan yihiin aalu beedkan anagu u nusraynaa oo u heelinaa oo kaalmeynaa bay leeyihiin waxbana kama jiraan hadii la raaco madaahibtooda iyo kutubtooda iyo aqoontooda iyo dhabankooda waxa la ogaaday aalu beedka kuwa ugu dayicid badan ugu garab bixin badan ugu ihaanaysi badan ugu garab badan ugu been abuurasho badan inay ayaga yihiin dadka uga fog aalu beedka inay wax u qabtaan ayaga weey barakallahu fiikum waxay dadka ugu soo dhawaadaan oo dadka ay isku qariyaan midda ayada weey way kala anwaac badan yihiin qoladii u darnayd ee ugu fogeyd al-ithna ashariya ar-rafida qolada ayada away qolada maanta xukunka qabsatay firqada inteedii kala sahlanayd ee shiicada kamid ahayd way iska jiiftaa oo imkaaniyaad ma helin laakiin raafidadii iyo 12 imaamiyadii qoladii la dhihi jiray qolada way qolada dawladda maanta yeelatay oo kacaan islaami ah oo kacaan shiica inta asaaseen ku afgambiyay oo ku qabsaday dawladii Iran ee furs la dhihi jiray hanti badan imkaaniyaad badanna way heleen awood badan bay leeyihiin farabaan bay adduunyada ku hayaan daa'iman taariikhdooda waxa ku jira islaamka ay col ku ahaayeen gaalada u luqaban jireen baabi'in jireen ayaga maanta ayaga iyo gaalada isku duuban baa maanta duulaana inay ummadda islaamka aynan waxba u reebina waa ka go'aan hadan aan ku dheeraanin shiicadu qolada ayada weey Iran baa hogaaminaysa maantada la joogo waxa aslama maanta haya ummadda islaamkana waa qolada ayada ah ee caalamka u sidee qoladii raafidada ugu darnayda aqulu qawli hada billahi tawfiq wassalamu alaykum rabbana allah ku jazeeyo wadna shaafisay su'aashan labaad isla mawduuci kama dheero taasay u badan yihiin ahbaabtu waxay soo qorqorteen waxay leeyihiin saxaabi waa kuma muxuuse naga mudan yahay iyo sidoo kale wixii saxaabada dhaxdhacay diinka culimada ahlus sunna wal jamaa maxay ka qabaan waa maxay mowqifkooda bismillah horta saxaabi waxa la yiraahdo la yaqaan aad baa loo yaqaan ninka saxaabi la yiraahdo waa man saaxiba nabiga sallallahu alayhi wasallam aw ra'ahu walaw sa'a waa ninkii nabiga la saaxiibay oo muddo badan la jiray ama se nabiga arkay sallallahu alayhi wasallam walaw sa'a min an-nahar waqti yaro maalinta ka mid ah la kulmay hal daqiiqada waxaan nabiga la kulmay sallallahu alayhi wasallam wa aamana bihi rumayya nabiga sallallahu alayhi wasallam ومات على ذلك الإيمان إيمانك أسعار كل أنت والصحابي يعني وسواس مسلمة الفتح إيو طلقاء إيو جن إيو بلا يدن إيران بوضت رافضة وضت حقها الله له هل ساعة وقت يرنيك النبي قال لكم ماي والنبي الرميي صلى الله عليه وسلم وإيمانك كل أنتي والصحابي ولا متابتان قلت صحابي نكاسوي بارك الله فيكم الصحابة محين نجم ذيهن هدي له أهل السنة والجماعة هدان هاي waxay saxaabada naga mudan yihiin oo xaq u leeyihiin al-imam at-tahawi rahimahullahu ta'ala ya aqeeyadiisa ku sheegay oo ku cadeeyay waxay naga mudan yihiin ahlu sunnah hadana ninkii intaas imam at-tahawi uu sheegay laga waayo falaysa min ahli sunnah wa huwa bara'un minhum ahli sunnah kamid ma aha baybuna kamid yahay al-imam at-tahawi muxuu leeyahay rahimahullahu ta'ala wa nuhibbu ashab rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam saxaabadii rasuulkan jecelnahay wala nufritu fi habbi ahad minhum
hal qof oo saxaabada ka midana jaceelkiisa ku xadgudbi mayno buri waan jecelnahay markaan jeclaanana tawaasum aan u jeclaanaynaa meel kale geyn mayno ku xadgudbi mayno jaceelkooda qof ayaga ka midana tuhmaysan mayno buri ma tuhmaysan qof ayaga ka mida wa nubghidu man yabghiduhum saxaabada ninka u carooda oo naco wax ka sheega waa u caroonaynaa waan u caroonaynaa وبغير الحق يذكرهم حق يوناك نكان وحنا هين صحابة كل شيء جرى وعروني نبو هذا أهل السنة والجماعة وحنا صحابة أهل الحق بيهاي عدول بيهاي إلهي بيكرر هذا النقدين إلهي بيكرر هذا النقدين نبي محمد ارتدي سيا هاي نكيده وايو أيها القرآن كم حيور هبين والسابقون الأولون آخري كتبوا الشيعة مراجع التفسير كالشيعة إلى ذا هاي آية آية كجرته سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وحفسروا الشيعة ولا واي مران كدن ويسو بلاي كوسو وحينayaan aayadaha markii la joogo aayadi bas ay qorayaan wixii ka dambeysay waa cadeynayaan ama xidhihi karaan ilaahay u dhameeyay saxaabada ilaahay u dhaho radiyallahu anhum wa radu anhu ilaahay saasi maxad dhihi kartaa muhammadur rasuulullaahi akhri ilaahay subhanahu wa ta'ala yani ma artay dambi dhaaf iyo yani ma artay wanaag oo dhan bay leeyihiin وعد الله الذين آمنوا وعملوا منهم مغفرة وأجرا عظيما إلهي دم بدافي أجر وين با إلهي أويا وهاي أقوى القادم إلهي سبحانه وتعالى منهم من تاسنا تبعيضية ما هو بيانيه منهم أي من جميع ما يقال أمان هكذا قادم يقولون كله مركا نكي وحانا وناقه كل شيء جينا وأو عاريسنا هاي وحبهم دين صحابة الله جعل هذا دين وإيمان وهي وإحسان سما فريد وهي صحابة الله جعل هذا وبغضهم صحابة الله على كفر قال نموي والنفاق منافق نموي والطغيان حد جذبوي صحابة وحكم ذا وموضوع هذا قولي دي سكان نقول بارك الله فيكم حقوق ذا إنه يهرت حقوق ذا سوي السنة والجماعة ضمان وحيسكوا وافقين وإجماع كليهن هل فرد والصحابة ذا كم ذا أنا دوري كرين ضمان يعدوا ليهن ضمان دتك دين تو أديقين يهين لما دتك أرضي محمد وخير خلق الله ونورك كسي بين يهين هل ميدو أي كم إذا أنا لدوري كرين أي اسكوا فقسي السنة والجماعة خلاف بعد حدعي خلاف كأسجع أهل السنة والجماعة وحي كمان إن أنا وحبل له شيء وحما أنا خلاف كأسجع له شيء تلك دماء طهر الله منها أيدينا وليجك إلهي قعمها أنا إلهي وكطهر إلهي إنه مجرين كعنت فلا نلوث به ألسنتنا عرب كان كوا سقين ماينو كلمة أهل السنة والجماعة سكوا فقسين ديك الصحابة ده دعي ويه شيطان بكى ذي وهدعي أنا بقول يالني ما كان شقين لي سو إلهي وقت دم ما جوجينين لحق لي ماين أنا كقيب قلي ماين ديك أسق نيضا وناجينا دد مجتهدين أو مد ولا بالدين تلنك هذا يعني لقى سو قال لنا ولا عليه والدين تؤد دال ويسوقي دال الدين ويسوقي يي إن يهين بانو أركينا اسم النعبين مركي دقال لما ين نم ولا لا إله إلا الله النولا وكل هذا يقول بحياه هبل بان نعبه وكسر رجولا ما أهين ويعدها المداية بارك الله فيكم ساسانا يعني ما أرتأي السنة والجماعة كمان أنت قيد أن ولا نيك كل حظ أنت أيضا نيك كل حظ الصحابة سووا لحق لي أما هبل محوها أما كون محي أهين لهداد أركتان ننكاس بلايا كذب جوحي سواء وقرنها يوحي شيء يكبضن فر منه فرارك من الأسد السلام عليكم dadka saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam wax u dhimayo sidee baan uga hortagi karnaa horta qofku wuxuu xumaha shiicada ay wado uu kaga hortagi karaa ama wixii xumaa oo aqeedo dhunsan oo dhan athabat ala mabdihi inuu mabdiisa ku sugnaado horta oo la leexin karin uu noqdo hadduu liman la leexin karin uu noqdo shaydaanka isaga cararay laakiin Soomaali maxay ku caan baxday hadda عدم ثباتي على المبدأ مبدأ بيني كسقناني مالي ما مذا بيلهات وذي جرجرولي سمعت هذا كعام بعض مدبر من مناسبات بدن كشيء سمعت ده حلوة أقول جري موقف هذا مبدأ كل جناشو يهلوا أقول جري حق أي قبصدان يكل إعلان وأدتك كيان دن ودن دن دجنها أو بقول كيو بقول مسلمها بقول كيو بقول أهل السنة بقول كيو بقول شافعيها أدونك كم جرو نذير مره صادر هذا النعمة أيضا المركز يضيعين إلهي وكأر صدي سبحانه وتعالى تيه ربنا إسرائيل كل دعي يعني نقول دعي صدنا سنة أنا مرينا أنا أفرتك أنا ورد عفين تونا أمرين ما فيرنا إسا مركز الصومال هو تساسوي أنا مبدأ يالته
oday u jirsheelal noqonin oo kolba yani midab aadan yeelanin oo mabda aad xagsato oo lagu damaacinin dadkaas bal fiiri Pakistan iyo Bangladesh iyo Hindiya iyo muslimiinta joogto oo dad Xanafiya oo Maturidiya si kasta hadaad yeesho maanta ya hal mas'ala ka war hadii kartaa hal mas'ala warabo Xaniifa waxba ma dhaafin iga leexo kule naska asaga iga aqoonana anu asaga ilaahay raagiisu ku caabudaya adu xarabtu xadiidka rabta wada buu kule ma garaysid hidihi dhaqankii uu ka soo aabihii uu xidhan jiray 500 sano yu ku dhagan yahay wadanka meel kasto tagan hidihi dhaqankiisa waa ka muuqda ma garanaysa nimanka Yamanta ah nin ra'iisul baarlamaankoodii ahaa bahal jambiyo la midi bay xidhaan yaa intuu Almaaniya Jarmal tagay yaa waxa lagu aragay midida ka laqanta markaas la yiri diyaaradda ka hadh ama baash iska dhig waa hub lama ogolo diyaaradda in la gole hada juz la yatajazaa minni tooridan arkaysan waa qayb anaga iga mid oo marnaba iga hadhaynin waa dhaqankiisii oo toori muxuu uga baahan yahay ra'iisul baarlamaan dawla diyaaradda baa laga reebay curfigii iyo dhaqankii Yaman ka jira la darsay waxa la ogaaday in laga gadanayo raali gelin bay dawladda Almaaniya bixisay wax dhacday ay ahayd Soomaalidu hatta labiskan hadda fiiri labiska Soomaalidu waa aqoon jiray aniga iga bilow nin qaba miyaan u jira Soomaalidu waxay noqoto qodob hayso yani dad athabat al mabada ana aslan ba aqoon bay noqotay hadda meel laga gaaray anu ma aqaano marka inaad mabdaada ku sugnaato kaga hortay kartaa inaad shiicada waxay ka soo urto dhan aad turto nin yani darad waxa socday fikir oo dawladda Sacuudiga ay batrool ku faafinayso wala wada qaatay halkaas la wada dhintay haddana fikir kale oo imkaaniyaadka iyo batroolka iyo lacagihii laga taasoo sana ka xayirnaa oo loo soo daayay Iran lacag fikir ay ku faafinaysa socda haddana ma raacna haddana wixna ka soo hadama fiirina har waxa jiidan la qorxisana Ilaahay ka baq aalu baytka 12 imaamay nimanka sheegtaan rag ugu ahlu sunaysnaa way mid asagu waa khayaali oo ma jiraba oo buur buu galay ku dhex jiraa bay leeyihiin laakiin 12 kale oo aymatuna ay leeyihiin aalu baytka aymadanadii way ay leeyihiin kulli ahlu sunna ahaayeen kullu ahlu sunna ahaayeen qaban qaaraadkoodii aqwaashooda sanad saxa ku wada joogtay ahlu sunnaha ahay shiicada say u nacbayn Ilaahay baa subhanahu wa ta'ala marka dadka asaga inay isugu ka soo gabiyaan maanta waxaan idin sheegayaa shiicadu qolada ugu been abuurad badan way dadka ahlu bayt way ayaga ay leeyihiin ay ku dhagan yihiin hadda ee madaxdu ay maraajicda kutubta u qoray ma arkaysa kulli manasabkoodu musawir way wax ahlu bayt kuma jiro hal ahlu bayt kuma jiro waa been abuurad nasabka ay nin bay soo qaadayaan nasab bay u taxayaan ahlu bayt bay ka ridayaan shariif way madaxay ku wadanayaan maanta ran asagaasi bunbuninayaan waxba kama jiraan dadka ahlu baytka rasmiga ah ilaa aimadii ka soo bilow ay sheeganayeen ila aana dadka shiicada uga fogaasho badan way oo ugu nacab oo taariikhda ka qoray dadka maanta ahlu baytka ugu cadcadeys yani mesela Habib Ali Jifri iyo maqaalaadka ay qoreen fiiriya internetka gala ay ka qoreen shiicada ay ka qoreen marka inay wax bilaash oo dhalanteeda la idinku soo gabado khalad weeye dadka in laga hortago meel la iska saaro oo la xurmaynin oo hadalka loo qarinin oo lawma talaamin aan Ilaahay lagaga baqin oo runta loo sheego oo si cad la isaga bariyeelaan idinka baahan yahay hal ma qof halaga qaatay barka warka soo gaabay Assalamu alaykum wa rahmatullah